daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad wararkii cali dhinaca diblomaasiyadda warfadhi media waa abriil 11 waa sabt waa mar kale barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan aan ku bilaabay markaan ugu horeysiiyay dawladda Saudi Arabia iyo xaafado ka tirsan magaalada Madiina ee uu ku yaalo masjidka Subana naxariis iyo nabadgelyo ee bakarkiisa ha yeelo ayaa waxay ku soo rogtay markaasi gabi ahaanba bandow iyo inaan laga soo bixin wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Saudi Arabia ayaa sheegtay in gabi ahaanba kala badh magaalada la xirayo ayagoo sheegay in xaafadaha qaarkood oo shaki ah in xanuunku gaadhay laga qabo aan laga soo bixi karin cidna aysan geli karin sida xaafadaha la yiraahdo Ashoraybat magaalada la yiraahdo ee ku dhaxtaala magaalada barakeysan ee Madiina iyo magaalada Qurbaan iyo xaafadaha kale la dhaho Al-Jum'a iyo Bani Dafar iyo deegaanka la yiraahdo Iskan Bani Khadra iyo deegaano kale sida ay sheegtay wasaaraddu waxay sheegtay in gabi ahaanba dadka areadaas ku dhaqan aysan soo bixi karayn ilaa iyo amar dambe inta laga siinayo waxayna sheegeen in ay talaabooyin adag oo kale ay sii qaadi karaan haddii loo baahdo si loo markaasi xakameeyo xanuunka faafaya intaynan hadaba ka bixin arrintan iyo sida uu saameynayo caalamka gaar ahaan marka ay timaado arrimaha caalamka islaamka iyo waliba xilligan cibaadada mid kamid ah tiirarka ugu waaweyn ee islaamka ka mid tahay bisha Ramadaan ee barakeysan oo haatan wax uu ka yar 2 toddobaad ay inaga xigaan hadii Ilaahay ina gaarsiiyo ayaa waxa la sheegay in saameyn xooggan ay ku yeelanayso waxaana la sheegay in arrimaha saameynta ugu waaweyn ay noqon doonto ayaa la leeyahay isku imaashii dadka oo inta badan dadku ay wada afraan xilliga afurka tukashada taraawiixda iyo waliba dadka oo mararka qaarkood xitaa wada suxuurta iyadoo sidoo kale la sheegay in fursadii ay isku heli jireen dadku inay masaajidada ku kulmaan isku arkaan isku marxabeeyaan iyo in xataa dadka danyarta iyo dadka dhaqaalaha haysta ay wada kulmaan isku meel ku tukadaan marmarna isku meel ku afuraan maadaama xilligaas ay tahay xilliga inkastoo markastaba dadka islaamku ay siman yihiin haddana marmarka masaajidka xilliyada la joogo dadka oo dhan ay siman yihiin ayaa la yiri arrimaha ay saameynta ku yeelan doonto 1.6 bilyan oo qof oo muslimiina ayaa sooma sanad walba bil maalin kasta bisha Ramadaan 30 maalmood isla markaana ka maqnaada cuntada maalintii oo dhan waxna aan cabin gabi ahaanba ilaa inta qorraxdu ay ka dhacayso waana mid kamid ah maalmaha iyo bilaha ugu barakeysan bisha ugu barakada badan markaasi sanadka islaamka ama taariikhda islaamka waxaana ay tani ay markaasi muujinaysaa ayaa la yiri in sanadka 2020 uu ka duwanaa doono dadkii sanadihii badnaa ee ugu dambeeyay soo soomay sidoo kale magaalooyinka dalalka reer carbeedka ama caalamka islaam qaarkood aad ayaa looga baaweeyaa loogana xusaa waxaana ay isu diyaariyaan farxadda bish dhalashada Ramadaan ayagoo ku xardha dhirta guryaha hortooda iyo waliba meelaha dukaamada ah waxyaalo muujinaya bisha Ramadaan oo ay ka mid tahay xidig bishii iyo waliba soo dhaweyn loo sameeyo Ramadaanta sidoo kale waxaa jira in dad aad u badan inta israacaan deegaanada qaarkood iyo dalalka qaarkood ay durbaan ka garaacaan xilliga suxuurta ayagoo dadka doonaya inay u faa'iideeyaan oo u kiciyaan suxuurta si markaas waa afraan waxa la sheegay intaasna aysan jiri doonin maadaama baa leeydi aan la ogolayn dadku inay soo baxaan oo xayndaab u saaran yahay ama dadku ay xayiran yihiin sidoo kale suuqyadii la isku jeedi jiray ayaa ilaa hadda dawladuhu ay ka fikirayaan sidii loo kala celi lahaa dadka marka ay adeegga timaado iyo u diyaar garowga toddobaadada u dhameeya waxayna dawladuhu qaarkood dirbaba talooyin ay soo saareen ay ku taliyeen in goor si horeysa la adeegto si aysan dadku aysan isugu milmin oo adeegga Ramadaanta gaar ahaan waxyaalaha muhiimka u ah Ramadaanta ay ka mid tahay timirta oo kale goor la sii adeegto oo la sii daldasho si aan markaasi maalmaha u dhameeyo toddobaadka u dhameeyo inta badan suuqyada ciriiri ahaa jirin aan ciriirigaasi loo sameynin ayaa la yiri dhanka kalena xajka oo isaguna tiir ka mid ah tiirarka waaweyn ee markaasi shanta tiir islaamka qof kasta oo awoodana uu waajib ku yahay inuu hal mar tago oo uu soo booqdo guriga Makka al-Mukarrama ayaa sanadkan isagana waxa uu ku jira calaamad su'aal in la tagay in kale goorsi horeysay wasiirka wasaaradda arrimaha xajka Maxamed Saalix bin Tahir Banteen waxa uu sheegay in ay muslimiintu sugaan amar dambe oo dawladda Saudi Arabia ay soo saarto walaalaha muslimiinta caalamka oo dhan jira ee doonaya sanadkan inay isku diyaariyaan waa caalamka oo dhan baa leeyahay qof kasta oo caalamka doonaya inuu kasoo xajiyo sanadkan waa in uu heegan sare ku jira isla markaana uusan sameynin wax qorshe safar ilaa iyo amar dambe ayuu yiri isagoo sheegay in ay arintu ay tahay mid iyagu ay jecel yihiin in saas u dhacdo haddaba waxaan rabaa dabaasha qiimaha inaan idila wadaago taariikhda inta jeer ayaa la og yahay inta la xiray xajka ama
uu xidhnaa xajku intees jeer ayaa ugu badneed waase waqtiyadii ugu adkaa tusaale ahaan inkastoo xajka aan la xidhin xilligii uu dhacay hargabkii Isbaanishka wixii loo yaqaan Spanish flu pandemic asaguna ahaa markaasi dad marka ahaa ee caalamiga ah aad kan u faafayay sanadihii muddo 2 sano muddo sanad iyo dheeraad uu soconayay wuxuu bilowday sanadkii 1917 ilaa 1918 uu soconayay waxaana la aaminsan yahay inuu dilay markaasi ilaa dhowr milyan oo qof oo dunida uu ku dilay lama xidhin xajka waagaas laakiin waxaa jiray marar badan oo kale oo xajka la xiray waxaa kamid ah markaasi xasuuqii عرفات لو يقني بورت عرفات سنتكي 865 taasoo markaasi ahaa iska horimaad iyo weerar markaasi u dhaxmaray dawladii Cabbaasiyiin ama ay soo qaaday dawladda Cabbaasiyiintu waxa uu dhacay markaasi taariikhda miilaadigu markay ahayd 865 dawladii markaasi Cabbaasiyiinta marka fadhigeedu ahaa magaalada Baghdad ee uu hogaaminayay Ismaaciil bin Yusuf sidoo kale loo aqoon yahay al-Safaq waxaana weerarkaasi ku dhintay dad aad u badan oo runtii weerkaas oo dad badan oo waliba xujay ah oo ku dhintay buurta Carafaad ee kor ka soo eegaysa magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama taasi waxa ay joojisay markaas ama khasabtay in la joojiyo markaasi sanadkii marka xajkii waqtigaas ama sanadkaasi sidoo kale weerarkii isaguna dhacay 930 sanadkii 930 ee uu soo qaaday Abu Tahir al-Janabi oo isaguna ahaa ninkii hogaaminayay kooxdii Shiicada ahayd ee la oran jiray Qarmaatiyiinta ama Qarmaati ahaa oo koox markaasi Shiicada Ismaaciiliyada ah uu ka soo weerartay jasiiradda Bahrain weerarna ku soo qaaday masjidka barakaysan ee Makka al-Mukarrama waagaas waxay dileen markaasi kooxdaasi uu hogaaminayay markaasi Abu Tahir al-Janabi 30,000 oo xujay ah ayay dileen kadibna dadkii ayay xataa waxay ku aaseen oo meedkooda ku daadiyeen ceelasha markaasi biyaha samsamka iyo ilaah ayadoo markaasi sida daadka uu isku rogay dhiigii dadka muslimiinta ahaa waxayna markaasi waagaas qaateen oo ay la tageen dhagaxa markaasi madow ee kabcada yaala ayadoo mid muddo ah ay la maqnaayeen ilaa la soo celiyena aan waxa uusan dhicinin kooxdaasi waxa ay sheegeen waagaasi in dhagaxu uu yahay sanab la caabudo sidaadaradeedna waxay sheegeen inay u qaateen oo ay weerarkaasna u kiciyeen waagaasna waa la xiray markaasi xajka sidoo kale waxaa jirtay in sanadkii 983 ayaguna ay isdileen ama markaasi uu dhacay markaasi khilaafkii dhinaca siyaasadda ee u dhaxeeyay Cabbaasiyiintii iyo Faatimiyiintii kooxdaas markaa Faatimiyiinta ayaguna waxay ka talinayeen dalka Masar adeerto iyo Cabbaasiyiintu markaa ayaguna Suuriya iyo joogay dalka Ciraaq waxaana ay taasi dhacday in uu khilaaf aad iyo aad u weyn oo kala dhaxmaray ama soo kala dhaxgalay labadaasi markaasi urur ama labadaasi midna ay dawladda Islaamiga markaasi hay'adda Cabbaasiyiinta midna ay joogtay Masar uu keeno in xajka uu xidhnaado ilaa 991 laga soo bilaabo sanadkii 983 waxaa sidoo kale jiray in la xiray xajka 1831 ayaa saan oo kale loo xiray kadib markii kooxihii shuftada ahaa ee qowleysatada ahaa ee dalka Hindiya ka soo duulay ay ku soo duuleen Makka al-Mukarrama oo xajka ku soo duuleen 831 isla markaana ay 3 meelood oo hal dalool hal dalool dadkii xujayda ahaa ay halkaas ku xasuuqeen oo ay dileen kadibna ay markaasi qaateen iyaguna oo ay aad u dhaceen isla markaana dadkina baadheen xajkana ay dhibaato weyn u geysteen waagaasna waa la xiray markaasi ama waa la joojiyay markaasi sanadkaas xujaydii ama xajkii sanadkaasi waa la joojiyay waxaa kaloo jiray dhacdooyinkii intii u dhaxaysay 1837 iyo 1858 muddo 12 sanadood ku dhow oo dhibaatooyin isugu jira xanuuno iyo kuwa kale qulqulatooyin ay ka dhaceen xajka oo ay ka mid tahay markaasi dhowr jeer inay dhaceen wixii loo yaqaanay boob adigu ka dhacay xajka iyo markaasi shufto xajka soo weerari jirtay sidoo kale inay jirtay markaasi xanuuno iyaguna ka qarxay halkaasi sida xanuunkii daacuunka ahaa sida dadka ugu leedeen 1846 isaguna dhacay oo isaguna kasbay in la xiro oo dad aad u badan 15,000 gaadhay ay ku dhinteen oo ay ku jiraan xujay iyo dad kale oo iyaguna ka agdhawaa ama deganaa agagaarka Makka al-Mukarrama ilaa 1850 ayuuna sii socday iyadoo sidoo kale uu dib mar kale u qarxay sanadihii xanuunkaas uu dib u dilaacay ka sanadihii 1865 ilaa iyo 1883 1858 waxa kale oo isagu jiray in xanuunkii adduunka oo dhan isaguna maray ee xanuunkan maartay shubanka isaguna uu kasbay kaasoo xataa la xasuusto in dadkii Masar ka soo xajiyay ay isku karantiimeeyeen isla markaana isku xayireen afaafka hore ee xeebta badda cas ta arimahaas oo dhan ayaa markaasi ah kuwa taariikhi
iyadoo ay jirto markaas in xajka la xiray marka ujeedku waa maxay daawasha qiimaha leh in xogtaas u soo ururnay waxa weeye xajka intaas oo jeer baa la xiray sababo colaadeed iyo kuwa xanuun intaba waxaana markaas la yaab leh in dadka Soomaalida maanta hadeerto laga kari leeyahay in iyadoo xanuun uu jiro ay joogan guryahooda ay joogan oo markaas ay xaaladaha inta ka dhursugay kareen ka dhursugan Mareykanka ayaa asaguna waxa uu ku dhawaaqay inuu 10 milyan oo dollarkiisa ah oo dollarka Mareykanka uu dul dhigayo cidii ka keenta xog ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsan dalka Lebanon kana tirsan kooxda Hezbollah Mohammed Al-Kawtharani ayaa waxa la dul dhigay lacagtaasi isagoo Mareykanka uu sheegay cid kasta xog lagu soo xirayo ninkaasi keenta in la siinayo 10 milyan oo dollar waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka US State Department waxa ay sheegtay in lacagtan lagu deeqi doono ruux kasta oo keena xog salaysan oo soo fududeysa soo qabashada ama khaarijinta Mohammed Kawtharani oo la aaminsan yahay in uu yahay ninka labaad ee dhaqdhaqaaqa dadka afkaarta shiicada iyo dawladda Iran fuliye ee gobolka bariga dhexe oo dhanka howlgala haatan waxa la sheegay ninkaasi in uu yahay ninka labaad marka laga reebo Qasim Sulaymaani halista ahaa baa ee la dilay sida warka qoraalka lagu sheegay bishii February ayaa wakaalada wararka ee Reuters waxa ay tibisay in uu ninkaasi uu la wareegay talooyinkii iyo isku xidhkii uu Sulaymaani hay jiray ka hor intii kadib markii la qaarijiyay isagoo sidoo kale la sheegay inuu kulamo degdeg la yeeshay kooxaha shiicada ah ee ku dhaqan dalka Ciraaq oo ugu baaqay inuu fariin uga sido Xasan Nasrallah isla markaana uu doonayo inay isku wada yimaadaan oo hal cudud sameystaan hogaamiyaha ayaa sidoo kale waxa la sheegay inuu mar kale diray ninkaasi waa Hezbollah ninka hogaamiya ayaa ninkaasi markaas Al-Kawtharani la yiraahdo diray oo u diray dalka Ciraaq si uu mar kale isugu dayo in dawladii loo dhisayay iyo khilaaf kalkaasi ka taagnaa la soo gabagabeeyo dawladna loo dhiso sida uu sheegay wargeyska leedaniyo Carab dhamaanna waxa la sheegay in arrintan kor u sii qaadaysa awoodda Iran ee gobolka ku leedahay in la soo ogaado mar ka dameysa iyo sida ay dalalka qaarkood ee Carbeed u biyo dhigtay madaxweynaha Chad Idris Deby waxa uu sheegay haba yaraatay in aysan dalkiisu mardama ka qayb qaadan doonin ayuu yiri ama aysan mardama qayb ka noqon doonin wuxuu ku sifeeyay la dagaalanka kooxda Boko Haram oo ay kala qayb qaataan ayuu yiri dalalka kale ee dalalka saaxil waxa uu sheegay in uu tan u suubinayo ayuu yiri iyadoo oo dalkiisa looga baxay dagaalkii ugu dambeeyay wuxuuna sheegay in ciidankoodu ay difaacyada ka xidhan doonaan dalkiisa ciidamadooda haatan iyo wixii ka dambeeya waxay kaliya ku dhima doonaan ayuu yiri harada Chad iyo laakiin marka ay noqoto ayuu yiri dalalka saaxil waxaan maanta laga bilaabo aan jiri doonin hal askari oo annaga ah oo ka qayb qaata ayuu yiri ama ka dagaalama banaanka dalka ayuu yiri isagoo leeyahay TV-ga qaranka mise Deby wuxuu intaas ku daray in ay tani tahay ayuu yiri digniintii ugu dambeysay iyo go'aankii ugu dambeeyay kadib markii digniintii hore ay dalalkaasi xog ku qaadan waayeen waxa uu sheegay in 92 askari ee looga dilay gobolka Bahama bishii March 23 ay u aareen isagoo sheegay in dhiig badan uu daatay askartaasi waxaana uu ku tilmaamay ciidankiisa mid uu ku kalsoon yahay dalalka loo yaqaan dalalka harada ay ka dhaxayso ee xuduudda ku leh dhinaca harada la yiraahdo harada Chad ayaa waxa ay kala yihiin dalalka Niger dalka Chad iyo Cameroon ayadoo dalalku ay markaasi dagaal culus kula jiraan kooxda Boko Haram oo u muuqata mid ka turturoonaatay dalalka laakiinse waxa la sheegay in jabintan ugu dambeeyay iyo dagaalkii ay ku qaatay dalka Chad oo dhibaato aad u weyn kooxda Boko Haram u geystay kadib markii howlgal loogu magac daray howlgalka la yiraahdo The Operation Bahama Anger ama howlgalka carada Bahama uu dhaliyay ayaa la khasaarey ugu badnaay abad kooxda gaara sidoo kale qorshihii loo yaqaanay ciidanka isku tagga ah ee 4taasi dal ee loo yaqaano the Multinational Joint Task Force MNJTF ayaa la sheegay inuu burburi karo kaasoo ay goordamana ay ku soo biirtay dalka leeda Benin dalal kale ayaa ay Chad kala qayb qaadataa la dagaalanka kooxda ay kamid tahay Daesh oo dalalka kale ee iyaguna loo yaqaano T5 oo uu hogaamiyo dalka Faransiiska oo ay kamid yihiin dalalka Burkina Faso Mali Mauritania iyo dalka Niger halka nagala socotaan daawadayaal wararkii oo cali dhinaca diblomaasiyadda qaybta saddexaad ee wararka daawadayaal